بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا ليال waxaan jeclaystay axaadiita rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka mida inaan idinla wadaago lianna xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu qooyaa qalbiga ruuxda ayuu u yahay quut saxaabiga la yidhahda cabdullaahi ibnu camr ibnu caas wuxuu ka soo warinayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi wa huwa cala almimbar isagoo mimbarka saaran rasuulka calayhi salaatu wasalaam mimbarkiisii ayaa rasuulku wuxuu odhanayaa irxamuu turxamuu war naxariista waa la idiin naxariisane bimacnaa naxariis yeelo adigu haddaad naxariisato xagga saraa lagaaga naxariisan irxamuu man fi lard yarxamukum man fi samaa waxaad u naxariisataa aadamaha dhulka jooga allah subxaanahu wa tacaala baa kuu naxariisanay waa mid waa qodobka labaad rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi waqfiruu yakfiru allaahu lakum iska saamaxa dadka ilaahay baa subxaanahu wa tacaala idin saamixi adigu saamax oo dadka cafi ilaahay baa subxaanahu wa tacaala ku cafiyi oo ku saamixi bal u fiirso alaa tuxibuuna an yakfira allaahu lakum maadan jeclayn inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ku cafiyo dabcan nacam haa waan jecelnahay idan adigu iska bilow oo adigu saamax ilaahay baa subxaanahu wa tacaala ku saamixi lianna maxaa yeelay kamaa tadiinu tudaan saad u dhaqanto ayaa lagula dhaqmay rasuulku calayhi salaatu wasalaam intaa kadib wuxuu yidhi haddaba weylun liaqmaaci alqowl waxaa halaag u sugnaaday oo wax weeye baaba'ay oo halaagsamay liaqmaaci alqowl kuwa intay weydha dhegaystaan aladiina yastamicuuna alqowl walaa yacmaluuna bihi intay hadalka dhegaystaan aan ku camalfalaynin kuwaas xaqiiqatan way halaagsamayn buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam yidhi bal u fiirso waa maxay waa kuwo hadalka dhegaysanaya laakiin aan ku camalfalaynin lima taquuluuna maa laa tafcaluun wanaaggii iyo khayrkii wuu dhegaysanaya laakiin kuma camalfalayo alla maanta maxaa ka badan imisaa wanaagga dhegaysanaysa maca daalika haddana weydaaranaysa kuwaa iska daaya adiga aan kula hadlayo bal ismiisaan ma tahay kuwa wanaagga dhegaysta maca daalika aan ku camalfalin rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku soo gebagabeeyey weylun lilmusiriina cala aladiina yusiruuna calaa maa facaluu wahum yaclamuun waxa iyaguna halaagsamay kuwa waxa weeye wanaagga kuwa xumaanta ku madax adeegaya lilmusiriin wax weye waxay sameeyeen iyo xumaantii ay sameeyeen bay ku madax adeegayaan maca daalika iyagoo garanaya lianna laysa alcayb an tukhti kula alcayb an tusira cala alkhata inaad khaldanto ceeb ma ah se laakiin waxaa ceeba inaad khaladkaagii ku madax adeegto kuwa khaladkooga ku madax adeegaya ayna ilaahay subxaanahu wa tacaala uga noqonaynin waa kuwa uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay way halaagsamayn ilaahay baan ka baryaynaa inuu tilmaamahaas inaga badbaadiyo waad mahadsantihiin wajazaakum allahu khayraa